Shacayb Xasan Ducaale oo loo aqoonsan yahay ninka ugu gaaban qaaradda Afrika oo telefishinka Ariel waraysi gaar ah ku siiyay magaalada Ceergaba ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee colaaddu ku dhex martay degmada Ceelafweyn isagoo ka codsaday beelaha walaalaha inay la yimaadaan isku tanaasul. waxaan u dirayaa baaq nabadeed dadka isdilayay degan meesha Ceelafweyn marka waxaan leeyahay dadka idinka meel ku wada nool idinka dhalay idinka wada yaala marka inaad naga joojisaan inaga soo afjartaan colaadahan inaad naga soo afjartaan baan rabnaa ayaan idinka codsanayaa anigoo Shacayb Xasan Ducaale xukuumaduna waa inay qorsheysaa waa inay hawsha dhamaystirtaa inaga dhamaystirtaa hawlaha colaadana naga soo afjartaa. dhanka kalena waxa uu Shacayb madaxweynaha Soomaaliland fariin ugu diray inuu wada hadal toos ah la yeesho Korneel Caare iyo jabhadda uu hogaamiyo sidaana lagu dhamaystiro nabad waarta oo ka tisqaada dhamaanba gobolka Sanaag. madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne wadanka isku soo dabaal wadanka isku soo wada dabaal wadanku ma wanaagsanay ma wanaagsan madaxweyne wadanku isku soo wada dabaal baan ku leenahay madaxweyne wallahi nabadgelyaduna ma wanaagsan gobol Sanaag baan joogaayo koonihii waxaan joogaa Soomaaliland baan joogaa marka waxaan oran lahaa madaxweyne isku midee wadanka sida wadanka in wax cid walba hubka laga dhigo way wanaagsan tahay taa waan ku wanaagsan madaxweyne waan ku hambalyeynaya tabashada cida ninkaasi waxa uu tabanayo ninka la leeyahay maxaa la yiraahdaa Caare la yiraahdo madaxweyne ninka balsoo cid kale oo la hadli kartaa ma jirto adiga mooyaane cid kale oo la hadli kartaa ma jirto bal ninka soo dabaal ninka waa nin Soomaaliland dara oo ciidanku ka mid ahaa waa nin la garanayo marka madaxweyne ninka balsoo la hadal baan ku leeyahay la hadal madaxweyne inaad la hadashid madaxweyne kol hadduu ninkaasi kol hadduu soo galay wadanka soo galay inaad la hadashid intaas baan oran lahaa anigu. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka Ariel Ceergaba. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.